waxay ku oranayaan waana la caburinaya Ethiopia gudaheega ma hogaamiye sida abiye oo kala loo caayo ayaa jira in lagu heeso ayaa la gaaray wixii aan maanta oo dhan ku daalay 3-4 saacadood qaar ayaa raba in ay bulshada dhexdeeda magacayga ku bahdilaan waligayna kama caban laakiin xaq baan u leeyahay cidnaba si shakhsiya aniga ima caayi karto aragtidayda waa ay ka hor iman karaan ra'yigayga waa la dhaliili karaa laakiin caay maya qaarkood xitaa hooyaday ayay caayaan aniga dhaafe xaq la iguma laha isagu markuu caayayo waa xorriyad anigu haddii aan ka hadlana waa ceeb in lagu caayo ma ogashahay adigu ma cid aan la caayin ayaa jirta waxay caayayaan ciidanka qaranka activist ma aha wariye ma aha magac ma leh wararka ugu badan ee laga dhageystay YouTube ee beenta ma ogtihiin in ay dad badan madaxa xanuujiyaan oo ay hurdada u diidaan qof maanta oo dhan shaqaynayay baa isdhahaya caawa warka dhageyso warka beenta inta uu madaxa ku xanuuno ayaa berrina ay shaqadiisa galaafanaysaa waddan walba qorshahooda ugu weyni waa in ay cay isku dir iyo been ay ku helaan dad badan sababtoo ah qofka dadka ugu badan ku xidhan yihiin ayaa ugu lacag badan Ethiopia dadka YouTube ku shaqeysta cashuur ma bixiyaan haddana annaga ayaa like iyo share ba u sameynaa accountkiisu meel kale ayuu yaalaa wakaalada dabagalka warbaahinta waxa laga rabaa in ay tan baabiiso waa in ay cashuur bixiyaan muwaadin walba wixii soo gala waa in uu cashuur ka bixiyo dollar ayay urursanayaan dhibaatada labaad activist siyaasi iyo wariye lama kala saari karo waxaad arki mid subaxii activist ah kadibna siyaasi ah marka dambena wariye markuu dadka isku dirayo activist haddii la qabtana waa wariye